بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal sidii caadiga noo ahayd taxanihii cashirkeenii suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex ee noo soo socday casharadii ugu dambeeyayna waxyaabaha aan ka soo hadalnay intooda badan waxay ahaayeen candlestick-yada oo ah aalad suuqan marka la joogo aad muhiim u ah lana rabo qofka inuu wax badan ka barto haddii dib aan ugu noqono waxyaabihii hore aan soo qaadanay waxaa ka mid ah ilaa 7 nooc oo candlestick-yada ah qaybta koowaad waxaan soo baranay spinning topska nooca loo yaqaano sidoo kaleeto waxaan soo baranay Marubozu afarta nooc ee doji aan soo baranay iyo sidoo kaleeto hammer and hanging man iyo inverted hammer and shooting star iyo sidoo kaleeto engulfing candles iyo kii ugu dambeeyay oo asna ahay twisted bottoms and tops muhiimadda marka kandaladan magacyadooda ay ugu soo raaciyay waxay tahay haddii even break maalin sida hadda wax u socdaan u fahantiin in idinka goonihiina u raadsan kartiin casharadan si wax markii international qofka uu u barto waxay ka saacidi doontaa in erey walba iyo shay walba magaciisa uu ku raadiyo wax badan ay u fududeyn doontaa haddaan dhahno shumacyadan waa af soomaaliyeynayna waxaa laga yaabaa inay idinku adkaato saa wax u raadin lahaydeen ama research u samayn lahaydeen taas darteed marka waxaan doorbiday in kandalada intooda badan ba mid walba magacii lagu yaqaanay ama uu ku caanbaxay aan ku soo qaato si idinka laftarkiina ah doodu ilaahay yiraahdo searching aad u samaysaan ama aad u raadisaan okay intaasna waa waxa aan ka dabacsanahay hadduu ilaahay yiraahdo maanta marka qaybtan waxaan ku baran doonaa saddex nooc oo muhiim ah suuqan marka la joogo oo ayagana loo kala yaqaano nooca koowaad evening and morning star al dhahaa nooca labaadna waxaa la dhahaa asagana sidoo kaleeto three white soldiers and black crows iyo nooca saddexaad oo loo yaqaano three inside up and down marka noocyada qaarkood qayb ka mid ah suuqan ereyadiisa waa la tarjumi karaa oo marka la macnaynayo af Soomaali waa laga dhigi karaa laakiin muhiim waxa ay marka magaca shumacaas oo wato qaabka uu u qoran yahay ee caalamiga ee loo yaqaano inaad marka hore u baratid nooca koowaad evening and morning star waa fiidkii iyo subaxdii evening iyo morning af English haddii la dhaho waxay noqonaysaa fiidkii iyo subaxdii starna waa waxay noqonaysaa xidiga marka xidiga subaxeed iyo xidiga galbeed waa la dhihi karaa af Soomaali ahaan hadduu qofku u fahmo laakiin magaca rasmiga ah iyo sidoo kaleeto three white soldiers iyo and black crows waa saddex askari saddexda cadcad ee askarta cadcad la dhahaa qaybta hore three white soldiers waa saddexda askari cadcad iyo qaybta dambe oo ah black crows waxaa la dhahaa baalkan kibiliga oo ay ahaan ay usoo qaateen shumacyadan sida caadiga aniga aan kusoo baranaynay waxay ahaayeen madow iyo cadaan marka maadaama cadaanka loo soo qaatay saddex askar kan madowgana waxaa loo soo qaatay black crows oo baalkan la dhaho kibiliga badanaan waxaa rajaynaa meelaha hadda wadamada aan joogna xataa in magaalada gudaheeda lagu arki karo inta badan ama dukaha baalkan dukaha loo yaqaano iyo sidoo kaleeto three inside up and down saddexda qayb saddex gudaha ah iyo saddex banaanka ama up kor ah Soomaaliha marka loo tarjumo qaabkaas ay noqonayaan kulli ina wax uu ka fahanteen rajaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo okay marka aan ku bilaawno insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo evening and morning star nooca loo yaqaano oo ah xidiga subaxnimo iyo xidigta fiidkii waa qaabab laba laab ah oo shumac candlestick leh oo aad caadiyan ka heli karto dhamaadka isbedelada waxaan rajaynaa kelimadaas inaad fahantiin dhamaadka isbedelada waxaa laga wadaa suuqa sida caadiga waxaan ka soo sheekeynay inuu leeyahay saddex jiho midkood jihada koowaad oo ah downtrend oo suuq hoos u socdo jihada labaad oo suuq uptrend ah iyo jihada saddexaad oo suuq ranging wax la dhaho galo ama sidoo kaleeto consolidation oo ah jiha isla siman suuq aan korna jirin hoosna jirin oo jiha dhex jooga maadaama marka saddexdaas nooc oo yeelan kara marka caadiyan waxaa meeshaan ku qoran marka candlestick leh oo aad caadiyan ka heli karto dhamaadka isbedelada macnaheedana waxay tahay candle suuq usoo socday downtrend oo la rabo in loo bedelo jiha uptrend ah ama suuq uptrend kusoo socda oo jiha downtrend isku bedel rabo sida caadiga ahna shumacyada aan soo baranay shumac walbo waxyaabaha uu ka sheekeynaya waxaa ka mid ah xaaladaha suuqa iyo jihaday wax ku socdaan yaa ku awood badan buyerska iyo sellerska intay awoodi jirtaa mar haddii shumacyada nooc ka mid ah aragtid maxaa dhici rabo oo awoodii buyerska sii yaraanayo ama sidoo kale suuqa awoodiisa waxaa lagu reegi rabo sellerska oo kusoo awood batay
taasoo macnaheeda marka information ama waxyaabaha loo yaqaano suuqan signal ku siinayso oo ah in suuqa jihadiisa ay kala wareegi rabto sida caadiga marka qaybihii hore aan soo qaadanaynay waxay ahaayeen candle stickyo hal ah oo doojiga kaliya aan u kala qaadnay 4 nooc iyo inta kaleeto min hal ah marka candaladan hadda aan rabna caaw inaan ka sheekeyno waxay isku raacayaan intooda badan 3 shalayna waxaan kasoo sheekeynay candalada labada isku raaca marka waxaa loo yaqaanaa suuqan marka la joogo single iyo double iyo triple oo ah macnaheeda keli wadar iyo kuwa 3 isku raacayo oo wadar ka badan oo ilaa 3 ah sida hadda kan maanta horteena yaalo ee aan rabno marka inaan barano okay xidiga subxeed marka evening and morning star xidiga subxeed iyo xidiga fiidkii waa qaabab labalaab ah oo shumac candle stick leh oo aad caadiyan ka heli karto dhammaadka isbedelada okay isbedelada markay dhacayaan marka maxaa la rabaa qofka inuu fahmo oo suuqa uu ka raadiyo maxay tahay sida caadiga marka sawirkan hortiina yaalo sida caadiyanba aan mar walba markaan casharada ka sheekeynayno waa in wax markaas muuqaalka qofka uu fahmi karo aan soo qaadano si xaaladda markaas laga sheekeynayo ee fahamkeeda uu ugu dhaadhaco sawirkan hortiina ka muuqda qaybtan sare ee ku qoran tahay morning star ee xidiga subxeedka wuxuu kasoo bilowday suuqan sida hadda halkan idinkaga muuqata suuq downtrend ah oo kor kasoo bilowday haddii marka suuqan downtrend oo hoos oo kasoo bilowday saddexdan nooc ee nooca koowaad uu yahay candle sell ah iyo candle labaad oo shabaha qaabkiisa markaa si fiican u fiirisid doojigii aan soo baranay oo shabaha waa candle yar oo caata ah xariijmihiisa sare iyo korna ay ka badan yihiin inta jirka ahaan marka loo fiiriyo waxaa sidoo kaleeto ku xiga marka candle saddexaad oo asna buy ah haddii xaalad noocan ay dhacdo marka suuqanna uu ahay suuq ka yimid kor ee u soo socda hoos ee marka suuqan la jooga loo yaqaano downtrend waxaa calaamadaha aad ka fiirinaysa marka loo baahan yahay waxay tahay tusaale ahaan shumaca koowaad waa in uu la sinaado shumaca labaad meesha lagu xiray tusaale ahaan markuu kan bilaabanayo kan ma arki kartid soo maha laakiin kan markuu kuu buuxsamo ee la raba shumaca labaad ee bilaabanayo waa in marka la xirayo shumacan lagu xiraa meesha kii ka horreeyay uu kasoo bilowday kan saddexaad ee ku xigana ee bayga noqon doona waa in uu asagana sidoo kaleeto ka bilowdaa meesha kii hore lagu xiray uuna ka sarreeyaa kan labaad kan saddexaadna uu ka hooseeyaa uu meesha uu gaarin okay taas waa tusaalihii koowaad ee morning starka tusaalaha labaad ee evening starka asagana waa cagsiga kan waa marka kanoo laisdaba mariyey noqonaya suuqan koowaad wuxuu ku soo socday downtrend oo suuq hoose u ahay suuqa labaadna waa marka suuq jiha sare ah ama kor u socda taasoo loo yaqaano suuq uptrend ah suuqa marka uptrend uu ku yimaada marka shumacyadan saddexda ah ee la rabo in aad ka ogaatid haddii ay kugu yimaadaan shumacyada noocan ah xaalad noocan suuqa kusoo jiray oo kor u socday adiga haddii aad ku jirto even oo aad faa'iido ku jirtid intaan aad suuqii soo raacday oo shumacahan uu kugu yimaado ee even starka loo yaqaano sida caadiyan wuxuu u muuqdaa shumac buuxa oo bay ah wax haba yaraatee shadow ama xariijimaha loo yaqaano malaha waxaa ku xiga marka shumac labaad aad fiirisid si fiican aad u fiirisid oo fahmi kartaa shumacan wuxuu ka furmay meesha kii hore lagu xiray isla meeshii kii hore lagu xiray agteeda meel u dhow ayuu ku xirmay xaalad noocan markay dhacdo marka ee shumaca saddexaad ee furmaya uu ku furmo suuq sel ah ama suuq hoose uu la siman yahay shumacii labaad ee ka horreeyey meeshii lagu xiray uu la siman yahay shumacii ka hooseeyey ee bayga ahaa ee ka horreeyey ee bayga ahayna uu waxyar oo ka sareeyo xaalad noocaas haddii aragtid waxaa lagu jiraa evening star haddii suuqaas faa'iido aad ka haysatid waa in aad sida ugu dhaqsiyaha badan aad kala baxdaa tusaale hadda inta ugu soo sheekeynaa marka qaybtan hoose sawirka hoose yaallo wuxuu ka sheekeynaa oo macluumaad buuxa uu kaa siinaa qaabka uu yahay iyo qoraal ahaan oo af english lagu soo qoray haddii aan isku dayo marka inaan tarjumo long bearish candle macnaheedu waxay noqonaysaa candle buuxa oo sel ah oo xaalad noocan ku samaysmay dhexbartankiisana meeshan ay tahay midpoint meesha dhexda ee dhexe ee candlekana inta ay tahay haddii qaab noocan ah uu samaysmo ee hoosna dooji qaabkan ah uu ka raaco doojiga meesha uu ku xirmay meesha uu ka furmay waxay la siman tahay candlekii selka ahay meesha lagu xiray si fiican u fiiri sida caadiga aan kasoo sheekeynay candleka selka ahna waxaa lagu xiraa qaybta hoose candleka bayga ahna waxaa lagu xiraa
qaybta sare taas ina fahantina waa ku muhiim candleka labaad ee buyga marka close above the midpoint of the first candle haddii marka candlekan buyga ah lagu xiro meel wax yar ka koreyso meesha dhexe ee candlekii koowaad ee salka ahay meesha ugu sareysa ee candlekii salka ahayna uu gaarin xaaladaas waa inaa sida ugu dhaqsiyaha badan aad u fahantaa suuqan wax haba yaraatee sellers badan kuma harin oo awoodii sellerska waa lagala wareegay oo suuqan jiha buy ah ayuu bilaaban rabaa taasoo micnaheeda ah haddii faa'iido suuqa kuu taalla ama lacag ah ku jirto markaas ee xaalad noocan kuu samayso in isla xaaladaasi suuqa aa uga baxdid tusaalaha xigana qaybta saddexaad ayaan kusoo qaatay oo ah suuq supportigii iyo resistancegii loo sameeyey xarajintii hoosena waxyaabaha usoo bixin waxaa ka mid ah ama loo yaqaano markii suuqan la joogo support xarajinta korana waa resistance weliba meelaha waxaa loo baahan markaa resistancegii iyo support aad samaynaysid sida caadiga aan kasoo sheekeenay waa in meel adag ama suuqaasi mar iyo labo wixii ka badan laga celceliyey ugu yaraan 2 mar okay sawirka meesha hoose ka muuqda marka fariinta halkan meesha hoose kaaga soo baxayso marka waxay noqonaysaa morning star oo loo yaqaano xidig subxeedka ee meeshan fariinta kaasi haddii suuqan aa ugu soo jirto sell ee xaalad noocaana ay kugu beeranto meesha suuqa uu joogana ay tahay area adag ee support طبعا حرجينا إلى فهم دونتين سوق قاسي إن وجهة كورس ما يسربه مركزنا فإذا هذا أكل بحد هذه مركز إذا عادي حالة وحد على مركز شو مع لبضة مركز سميستو كان سدحات وسمين سوايو وسوقي جهاد صوج بصلو تاس يقول عن مركز وإنها سوقتا confirmation أما أنسحتان أما غوبتان لو قلت لك إن أكن كان إنه قوب العوض كدبنا بايغا وحرمه مال كسرسو ماشي دحه ee candlekii selka ahay una dhaweyn meeshii lagu xiray candlekaas intaas ina fahanteen rajayna okay isla wili waxaan ku jirnaa marka morning star-ka iyo evening star-ka noocyada candlesticks-ka ee suuqan sarifka lacagaha qalaad shumaca ugu horeeya waa shumac bullish ama buy kelimada bullish iyo buy waa isku mid ina taas u fahanteen rajayna oo ah iibsasho ama wax la iibsanayo oo qayb ka ah كورينو كوري أما uptrend كور معنا سوق كور مركو أصعد وحلو يقال سيدا عادي نقصو شيكيني uptrend أوكي شو مع اللباد وحلو ليه مركو جرير تاس أو موجنيسا إن لغا يابو إن سوق أحديدا أي كدع دونتو وحان معقول أهين أما إسبدل وحان معقول أهين مركا قف كسوقاسي جهال لو قلت لقل ما جهال كلا أراعة حاقول عيسو وحان معقول أهين تاسو إنو العكتيسو كله ميو ama uu qasaaro uu kala kulmo shumacani wuxuu noqon karaa mid cagaaran ama mid guduudan labadaba oo ah macnaheeda sell ama buy taasoo la rabo marka in aad fiiro gooni u yeelatid shumaca saddexaad wuxuu u shaqaynayaa marka sidii xaqiijin in dib u noqoshadu jirto oo loo yaqaano reversal waxyaaba dib u noqoshada suuqa marka la joogo waxaa loo yaqaanaa reversal kelmadahana in badan marka in kugu soo celiyo waxaan rajeynaa insha allah in aad fahmi doontiin hawr usoo sheegnay uptrend downtrend consolidation iyo sidoo kaleeto ranging oo intooda badanba ah kelimadaha ugu badan ee suuqan lagu isticmaalo haddii marka shumaca saddexaad wuxuu u shaqaynayaa lagu dhahay sidii xaqiijin in dib u noqoshadu ay jirto oo ah in suuqaasi reversal wax loo yaqaano oo sameyn rabo maadaama uu shumicii xirmayo meel uu ku xirmayo meel ka baxsan bartilmaameedkii koowaad oo ah meeshii kii hore ee koowaad uu ku xirmay meel wax yar ka hooseyso dhexdana ka sareyso good taas waxay ahayd saddexda shuruud ee la rabo in aad ka fiirisid shumacyada sidoo kale waxaa marka usoo gudubnay qaybta kaleeto ee 3 white soldiers and black cross loo yaqaano oo tusaalahan hortiida ka muuqda aan idin soo dhigaysay wax badan ugu fahantaan qaabka saddexda askar ayaa muujinaya markii saddex shumac oo bullish ama buy candle dheer la socoto oo buy ah macnaheedu noqonaysana iibsasho ah oo tilmaamaya in isbedel uu dhacayo tan macnaheedu ayaa ah fariin buy ah ama signal gadasho oo lagu sheegayo suuqaani iibsadayaal badan iibiyaal badan kuma harin ee waxa soo socota fursad gadasho ah oo loo yaqaan suuqa marka la joogo buy 3 white soldiers marka waxay badanaa ay ku sheegayaan ama intooda badanba ay sheegaan fursad suuqaasi buy ah in ay bilaabo rabto okay see ku garan kartaa marka saddexda shumac
waxaa ka soo horreeya suuq ka yimid kor ee hoos oo loo yaqaano downtrend. suuqan markii shumaca ugu dambeeya selka ah noocan inta uu ku xirmo waxaa ku bilaabanaya marka 3 shumac oo shumaca koowaad meesha uu ku xirmo meel ku aadan oo shumaca labaad ka bilaabanaya oo asagana isla buy ah. hoostiisa hadaa si fiican u fiirisid wax shadow ah ama xariijin ah ma samaysanin. marka shumaca meeshan uu ka bilaawdo ee lagu xiro qaybtan sare waxaa sidoo kaleeto aa fiirsanaysaa marka isla shumacii saddexaad ee ku xigay meeshii kii ugu dambeeyey ama dhexe lagu xiray ma ka bilowday sax oo ka bilowday. haddii xaaladdu sidaan tahay ee shumacan uu si buuxsan uu kugu xirmo wax shadow asagoo lahayn ama wax xariijina lahayn uu kugu xirmo suuqa waa fursad buy ah. ha fiirin kandalka saddexaad ee selka ah way dhacdaa mararka qaar markuu qofka suuqa galo ee uu faa'iido raadinayo isla markii faa'iidadiisa inay kasoo hormarto minus yar oo xoogaa soconayo kadibna suuqa jihadii u rabtay ee buyga ahayd inuu ku aado ilaa bibis adiga markaas aa suuqa ka qorshaysatay ama in ka badanba uu kor u dhaqaaqo. isla sidoo kale marka kandalkan ee noocan loo yaqaano 3 black rose-ka waa cagsiga 3 white soldierska oo marka nooca askarka cad ee sidaan u samaysmaan kan kale ee 3 black rose-ka waa cagsiga kanoo kale u samaysmaa. fiiri meesha uu ka bilaabanayo saddexda shumac waxaa ka dambeeyey kandal ahay buy sida kan hadda uu ugu dambeeyey kandal sell ah kan waxaa ugu dambeeyey kandal buy ah. kandal buyga marka uu sida saddexdii aniga aan rabnay ee 3 black rose-ka ay samaysmaan marka oo qaab noocan ay u samaysmaan mar walba waxaan dhahnay kandalka koowaad meesha uu ku xirmo meel ku aadan waa in laga furaa kandalka labaad. good okay qaybtii hoose oo haddayna markaan joogno inta kor hoos ahayd hadda kor noo soo martay wax shadow ama xariijin ah malaha. hoos u soo deg meesha shumacan uu ku xirmay xariijinta hoose isla shumacii saddexaad ee selka ahay meeshii kan lagu xiray ayuu ka bilowday. haddii xaalad noocaana ay kuu kulunto oo suuqaani uu ku siiyo fariin ama signal ah sell xaqiiq waxa ay marka shumacan xaaladiisu kuu buuxsanto suuqaasi sell u raac laakiin buyersa soo geli doonaan taas yaan waxba ku cabsi gelinin oo suuqaasi waxa uu noqonayaa suuq jiha hoose u socda. tusaalaha labaadna waa sawir suuq kor ka yimid ee hoos u soo daatay kadibna ku siiyey fariin ah in meeshan ay ka banaan tahay 3 white soldiers oo raba suuqan in aad ka raadsatid fursad buy ah. okay isla 3 black waxaan ku jirnaa 3 white soldierska iyo black rose-ka maxaa loogu baahan yahay marka suuq walba markii kandalaas lagu soo sheego xaqiijimaha laga raadiyay marka maxaa kamid ah saddexda qaab ee shumaca madow kibiliga ah ayaa ah mid ka soo horjeeda saddexda askari ee caddaanka ah. waxaa la sameeyey markii saddexda shumac ee beerishka ah ama beerishka waxaa waa sidoo kaleeto sell ah ay la socoto xaalad uptrend markaa suuqaas uu yahay uptrend xoog leh weliba taasoo muujinaysa in kala noqosho uu ku jiro suuqa isla waqtigaasna waxa dhacaya ayaa ah isbedel jihadii suuqa markaasi loo waday jiha aan ahayn ayuu aadi doonaa. shumaca labaad ee jirka waa inuu ka weynaado shumaca hore waana inuu ku dhow yahay ama aad ugu dhow yahay ama uu ka hooseeyo meeshii shumacii hore lagu xiray taasoo la raba in shuruudaha shumacyada laga raadiyo. ugu dambeyntii shumaca saddexaad waa inuu ahaadaa mid la mid ah ama ka weyn kan shumaca labaad jirka oo leh hoos aad u gaaban ama aan hoos lahayn. hoosta macnaheeda waxaa laga wadaa xariijinta shadowga loo yaqaano oo ah xariijintaan haddaa fiirisid dhinacaaga bidix sawirka yaallo kandalkan oo kale tusaale ahaan buyga ah wax habeeraatee xariijimo kore iyo hoose midna malaha. marka suuqaan la joogana waxaa loo yaqaanaa shadow kan ka horeeyana xariijin kor uu leeyahay kan ka sii dambeeyana ujeedaa wuxuu leeyahay xariijin kor iyo hoos ah taasoo la rabo marka astaamaha inaad ka raadisid suuqa xaalad noocaas ah markii uu ku jiro. okay tusaalahan hortiina ka muuqda waxaan rajaynayaa in ay wax badan idin fahansiin doonaan. shumacyadaana waxay isku raacaan saddex shuruudaha in laga fiiriyo la rabo ay tahayna waa lagu soo sheegay oo haddii aad qoraalka ku fahmi weysid muuqaalka hortaada ka muuqda ee sawirka dhanka bidix ee shaashadaada kasoo muuqanayo ayaa ku caddaynaya xaaladda shumacaasi iyo qaabka u samaysmo meesha uu ku xirmo meesha la rabo inuu ka bilaawdo iyo shumaca saddexaad caddaynta uu ku siinayo in aad fahantid. okay
three white soldiers marka and black rose kii hore wuxuu ahaa nooca loo yaqaano kibiliga kasoo sheekeen soo maaha kanna marka wuxuu leeyahay qaab ka duwan qaabka noocan ah ee shumaca saddexda ah waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah astaamaha bullish oo ah macnaha buy ama gadasho inaad gadatid markaasi ee ugu awooda badan wejiga gaar ahaan markay dhacdo kadib hoos u dhac iyo fiditaan waqtiga gaaban ah kelmadaas fiditaanka waxay noqonaya ama hoos u dhacaas xoogaa waxaa imaan karto in suuqaasi uu galo xaalad consolidation ah suuqaasna marka uu ahay suuq downtrend ah okay xaaladda kale labaad marka waxay tahay saddexda askari ee ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa shumaca dib u noqoshada waxay noqon kartaa ama soo afjaraysaa hoos u dhigga ama waxay tilmaamaysaa in muddadii xoojinta ee raacday hoos u dhaca ay dhammaatay haddii marka wixii lagu sheego lagu dhaho suuqi xaalad badan oo noocaasi ma sii jiri doonto ama salaries badan ma sii jiri doona oo lacagtaada aa ula bareertid waxaa waxay noqonaya qof dhagool ah oo laami inuu istaagay baabuur soo farin goostay kusoo socda u qaylisoo tiray war ka leex baabuurka lagama yaabo marka inuu ku maqlo qofkaas ilaa maahane inuu kuu soo jeesto uu ku arko way adakaanay marka inuu codkaadaas maqlo sida caadiga ah qaabka saddexaad marka qaabka loo arko inuu yahay mid ansax ah ama lagu hubin karo ayaa ah shumaca labaad waa inay ka weynaataa jirka shumacii hore okay taasoo ah macnaheeda shumacan kow markii hadda inta kaaga muuqdo sawirkan haddaa fiirisid shumaca koowaad waxaa ka weyn kan labaadna waxaa kasii weyn kan saddexaad xaaladaha ay ku samaysmaan iyo siday u samaysmaan iyo meelahay ka furmaan iyo meelahay ku xirmaanna waa kula wadaagay intaasna inaa fahantidaa rajayna hadduu ilaahay yiraahdo okay three inside up and down saddexda nooc ee kor iyo hoos oo ayagana sidoo kaleeta ah suuqa marka la joogo shumacyo aad muhiim u ah inta badanna kusoo noqnoqda suuqa sarifka lacagaha qalaad ee annaga aan ka ganacsana ee loo yaqaano forexka saddexda qaab dhismeedka shumac ee gudaha ayaa ah qaab isbeddel ku yimid oo laga helo hoosta downtrend ama meesha ugu hooseysa ee shumac aan dhehe suuq downtrend ahay okay qaabkan shumaca saddexda ah ayaa muujinaya in hoos u dhaca ay suuragal tahay inuu dhammaaday iyo in dhismo cusub oo cusub uu bilaaban rabo taasoo ah micnaheeda fariin in lagu siinaa lagu leeyahay xaalad cusub aad dhici rabto bal la soco waa adoo micnaha lagu yiri magaalada roobaa jiro jawigana ma fiicno markaas waa inaad ka fikirtaa marka xaaladii kula gudboon iyo wixii aad samayn lahayd iyo roobka markaasi jiro wixii loogu talagalay inaad si qaadati in kaleeto aday kaa go'daa okay sidoo kaleeto marka si aad u ogaato saddex ansax oo hubitaan ah ahaanshiyaha samaynta shumaca furan waxaan fiirinaynaa marka qaybteenna ku xigto shumaca ugu horeeya marka waa in laga helaa salka hoose ee hoos u dhaca waxaana lagu gartaa shumac dhaadheer oo baay ama iibsasho ah kow tan labaad shumaca labaad waa inuu ugu yaraan sameeyo ilaa iyo bartamaha bartilmaameedka shumaca koowaad ilaa iyo waa ku u dhow ama ku macnaha la siman ma aha shumaca saddexaad wuxuu u baahan yahay in lagu xiro meel ka sarreyso shumacii koowaad ee sare si loo xaqiijiyo in iibsadayaashu ay ka gudbeen awoodda hoos u dhaca suuqa taasoo ah micnaheeda in awoodii lagala wareegay tusaalaha marka dhanka bidix ama midigta aan dhehe ka muuqda u nimaadno three inside upka noocaana u samaysmaa three inside downkana qaab noocaana u samaysmaa sidii caadiyan marka aan kasoo sheekeenay kii hore wuu ka duwan yahay oo kan wuxuu ku bilaabanayaa three inside upka ah shumac sel ah oo isla markaasna waxaa ka horreeyey sel badan oo ah suuqaan haddii aad fiirisid suuq downtrend kusoo socday oo kor ka yimid haddii suuq kor ka yimid ee jiha hoose ama area support adag uu ku yimaado shumacaan selkana uu ku bilaabo shumaca labaadee dhalan doonana uu u furmo qaab ku aadan shumacii hore ee selka meeshii uu ku xirmay hadduu ka furmo uu meel dhexena soo dhaafo korna uu gaarin ee isla shumaca saddexaadna uu ka furmo kii labaad meesha lagu xiray uuna ka sarreeyo kii koowaad fariinta lagu wado waxay tahay inaad fahamtid suuqaan fariin bay ah ayuu ku wadaa oo shumaca ku xiga waa sel laakiin sidii aan kasoo sheekeyna caadiga ahayd suuqa isla markaas aad geshid waxaa laga yaabaa in menis uu kugu bilaabo isla daqiiqado ama xoogaa kadibna aad aragtid adigoo faa'iido ku jiro
taasoo marka la rabo in uu qofka u fahmo suuqan xaalad nooce ah ayaa dhici karto sidoo kaleeto mar walbo aan kasoo sheekeynayna marka xaalada noocan ah ama shumacyada waxaa mar walba la rabaa in qofka uu hubanti ama waxyaabaha difaaca jirkiisa ama difaaca suuqan uu ku jiro adkeyn kara inuu horey u sameeyo oo ay ka mid tahay stop losski oo aan soo baranay sida loo sameeyo in lacagtaada sida aad u xakameyn lahayd iyo lot size aad suuqaas ku geli lahayd in adiga aad mas-uul ah ka tahay oo aad controlshid horena waa lagugu soo sheegay waxaa lagu dhahay wax hubanti ama la hubo oo 100% ah meeshan ma jiro laakiin calaamado iyo farsamo iyo technical analysis aan baranay isticmaalaynaa oo ah macnaheeda inta ugu badan percentage ah marka loo fiiriyo 99 ilaa 90% qaab noocaasi u dhacaan haddii xaaladii la rabay xaalad ka duwan ay kugu dhacdo lacagtaada ha khasaarin oo meel la yaqaano dhigo haddii hubanti jiri lahayd qof walba oo suuqan soo galo millions ayuu ka sameyn lahaa oo lama arki lahayn qof ku khasaare sidaas darteeda marka waxaa muhiim ah in qofka uu ku daro qorshihiisa caadiga ah okay tusaalahan hoose marka waxaan kuu soo dhigay mar walba si qofka uu u fahmo waa inaan haysanaa labadeeni xariijimood ee siinayay hubantida suuqa ee ah support iyo resistance qaybta cross resistance ah iyo qaybta hoose oo support ah farinta meeshaan marka xaaladda nooca meeshaan ka bilaaban rabto waa xaalad haddii qofka macnaha si fiican u fiirisid so 3 inside up ah in uu meeshaan uu ka samaysan rabo laakiin ay naga dhiman tahay kandal saddexaad oo siin lahay xaqiijintii suuqa si aan kor ugu raacno good okay wili 3 inside up kan ku jirnaa marka iyo downka muhiimadda marka waxaan ka fiirinaynaa xaqiijimihii iyo sidii aan u raaci lahayn suuqaasi in aan u ogaano waxaa taa ka duwan marka saddexda saamaynta shumaca gudaha ah waxaa laga helaa dusha sare ama suuq uptrend ahaa oo resistance ugu soo dhacay waxay micnaheedu tahay in uptrendkii dhammaaday oo ay hoos u dhac cusub bilaabatay saddex gudaha ah oo shumac oo u samaysan shumac waxay u baahan tahay marka inay lahaato sifooyinka soo socda tusaalaha marka arabna waa kana shumaca ugu horeeya waa in laga helaa dusha sare oo waxaa lagu gartaa shumac buy ama iibsasho ah okay good shumacaasi markuu bilaawdo haddii aad fiirisid qaybtan dambe shumaca resistancega noogu dhacay oo shumac buy ah kiisi labaadna uu yahay shumac sell ah okay shumaca labaad waa inuu ka dhigaa marka geeska ugu sarreeya shumaca hore tan saddexaad ee xaqiijinteena noo buuxinaysa ayaa ah shumaca saddexaad ayaa u baahan in lagu xiro shumaca koowaad ee hoose si loo xaqiijiyo in iibiyayaashu ay ka awood bateen awoodda uptrendiga ama suuqii markaasi u soo socday jihada kore laga awood batay good gabagabadii waxaan soo gaarnay marka qaybteenii ugu dambeysay ee candlestickska hadduu ilaah yiraahdo intii hore aan soo sharaxnay waxaan rajeynayaa inaa in badan ka fahanteen muhiimna ma aha qofka inay inta laga soo sheekeeyo maskaxdiisa wada gasho qayb yaroo kamid ah haddaa heshid dibna aa ugu noqotid wixiina aa muraajacaysid faham badan ayaan rajeynayaa in aad ka dhexli doontaan hadduu allah ugu dilay yiraahdo waxaa meeshaas noogu soo gabagabaysmay imtixaanaheenii candlestickska hadduu ilaah yiraahdo intaan marka casharo noocaan oo kale ku kulmi doono hadduu ilaah yiraahdo waxaan sameynaynaa marka khayr badan iyo caafimaad ayaan isku rajeynaynaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh